السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي qiimaha badan ee ku xiran kanaalka YouTube ee Gratso isku soo noqod wanaagsan casharkan waa casharkii 13aad ee barashada Adobe Illustrator insha Allah waxaan ku baran doonaa sidaan u sameyn lahayn ID card qaabkan ah fadlan hadii aad soo daawan 12 cashar ee midkan ka horeeyay daawo insha Allah wax badan ayaad ka fahmi doontaa casharkan iyo wuxuu ku saabsan yahay maanta labadii cashar ee midkan ka horeeyay waxaan ku soo baranay sidaan u sameyn lahayn business card iyo ID card ku xogaa way iska agdhow yihiin inkastoo wax yar ku kala duwan yihiin inta badan ID kaarada noocan ayaa bariyahan dambe loo batay oo qaabkan dabcan u sawiran sida arkayso oo dhubkan ah kuwii jijiifka ahaa hadii aad doonayso inaad ayagana aad samayso kulli cabirka waxaad ka qaadanaysaa business card ayay isku cabir noqonayaan kadibna wax weeyaan insha Allah waxyaabaha halkan ku qoran xilliga uu ID card ku soo baxay xilligu dhacay waa laga maarmaa in lagu daro sidoo kale ID card-ka waxa la raaciyaa dabcan ID ayuu leeyahay numberkiisana waa inaad raaciso oo qaabkaasi sidaas ay u sameynaysaa marka bal maanta waxaan doonaynaa horta cabir inaan isticmaalno dabcan kano cabirkiisa ayaan doonaynaa qaadano halkan waxa inoo yaala nashqadii aan raaci lahayn sidoo kale halkan waxa inoo yaala logadii dabcan Gratso halkanna waxa inoo yaal SQ scan code dabcan qaabka loo sameeyana marban cashar ka diyaarin doonaa kulli maanta sambalkan ayaa isticmaali doonaa halkan ayaan dhigi doonaa SQ codekaas sidoo kale waxaan isticmaalaynaa wax kale maaha waa rectangle-ladii wixii la midka ah logada waxaan isticmaalaynaa 3 jeer mar waa kan ayadoo aysan la socon Gratso technology marna waa kan dabcan sida ujeedo waxaan ka dhignay qaabkan inaan kala goynay marna ayadoo dhameystiran laba saddexdaas mar ayaan isticmaali doonaa marka waxyaabo waxa jira markaas aan u fiiriso kuwa adag iyo waxyaabo dabcan fudud oo waxa jira aad sameyn karto oo hadii aad soo daawato labadii cashar hore marka kulli wixii aas dabcan qaabka loo sameeyo ama tricks-ka aan barnay isla fiirin doonaa wixii kale kulli qoraal iyo waxyaabahaas kale halkan ayaan ka koobiyeysan doonaa laakiin waxaan muhiim ah inaan sameeyno ID card dhameystiran waxaan ku dhufanaynaa marka file kadib waxaan leenahay new cabirka aad isticmaalaysaa marka waa kan kulli halkan waxaad ka dhiganaysaa magac waxaad qoranaysaa ID kadibna waxaad raacinaysaa card inta markii aad qorato kulli xarafkaas iska hore waa la iska weyneeyaa badana iska weyne intaas oo kale markaad qoratona waa okay sida markii aad sameyso artboard-ka waxaad ka dhiganaysaa labo sababtoo ah wax weeyaan Illustrator labada xababa wajiga hore iyo dhabarka dambaba halkan project ayaa lagu dhex diyaariyaa labadoodaba marka two artboard isticmaal sidoo kale meeshan waxaad ka dhiganaysaa width-ka halkan cabirka marka uu horeysa iska sax haduu cabirku ka qaldan yahay dabcan kaama qaldana laakiin haduu cabirku wax ka duwan waxaan qoraay ku saaran yahay dabcan pixel ka dhigo cabirkan si aad u isticmaasho marka pixel marka ka dhigato kadib waxaad isticmaalaysaa 614 oo width-ka ah halkan waxaad ka dhiganaysaa marka 1011 pixel ayaad ka dhiganaysaa inta markii aad sameyso halkan ka iloobin hadii ay ku tahay RGB inaad ka dhigato CMYK maadaama ID card uu kamid yahay waxyaabaha la daabacayo bas hadii waxa aad sameynaysaa yihiin waxaan la daabacayn waxaad sameynaysaa inaad ka dhigato RGB halkaas aad ka dhigato kadib waxaad ku sameynaysaa marka create document inaad documentigaaga sidaas aad ku abuurto sida ujeeda marka design midkii hore la mid ayaa soo baxay oo kana waxaan sameyn doonaa marka kan ayaan waxaan rabaa inaan kan u dhaweeyo sababtoo ah sidaan cabirka dhowti uu soo ugu dheeran waa soo jiidaya halkaas ayaan keenayaa waka meesha waxa ii yaala sambalkii halkan waxa ii yaala qalfoofti marka waxaan sameynayaa control plus ayaa taabanaysaa xogaa zoom in ayaa ku sameynaysaa waxaan ku hormarayaa waxa weeyaan midkan kadibna waxaan qabanayaa space-ka oo dhankan ayaan u sikin halkaas ayaan hawsha ka bilaabaya kadib halkan ayaan tagayaa waxaan soo qaadan doonaa dabcan logada waxa muhiimka wuxuu yahay color-ka ay leedahay logada ayaan doonaynaa business card ku dabaqo waad fahmaysaa halkan oo kale markaan dhigo kadib waxaan ku sameynaa marka inaan gaabiyo shift-ga ayaan qabanayaa kadibna waxaan ku sameynaa inaan gaabiyo control waxaan leeyahay marka minus wali logada waa inaan yareeyo halkaas oo kale ayaan logada isku geyn doonaa qaybta ayaan dhiganaya marka kadib waxaan ku sameyn doonaa marka inaan select gareeyo right click aan iraado kadib waxaan ku sameynaa marka grouping inaan iraado halkaas oo kale aan logadii geeyo ama meesheeda u soo laabto space aan qabto kadib marka gacanta ii soo baxdo halkaas oo kale ayaan isku geyn doonaa kadib waxaan leeyahay control plus ayaan leeyahay waa soo dhaweysanayaa space-ka mar walba qabo halkaas oo kale ama intaas oo kale ayaan u baahanahay kadib dabcan logada aan soo dhaweysto halkaan oo kale aan iska yara keeno waxaan u baahanahay marka inaan ku laabto meesheedii waxaan ku hormari doonaa dabcan rectangle-kan iyo meeshaan aad u moodo in la dalooliyay waxaan sameysanayaa marka logada aan u soo qaato waxay tahay color-ka logada ay leedahay waa guduud iyo blue waxaan doonayaa inaan ka dhex bixin sababtoo ah blue badan ayaa jira guduudku wuxuu noqon karaa mid fuul ah mar walba waxa aan sameynayo waa inaan logada aan shirkadda ama company u sameynayo waa inaan ku dabaqo marka waxaan sameynayaa halkan right click ayaan leeyahay kadib waxaan soo qaadan doonaa rectangle tool
kadib rectangle halkaas oo kale markii aan soo qaato halkaas ayaan geen doonaa ilaa intoo kale ayaa la ekaysiin si u jeedo marka fiilka ama colorka hoose ee calooshu waa color la'aan oo wax color ah ma laha waxaan soo qaadi doonaa marka ugu horeysa waxaan ku dhufanaysaa selection tool kadib waxaad soo qaadaysaa marka airdrop kadibna halkaas ayaad klik ku siinaysaa si u jeedo marka meeshan waxay qaadanaysaa colorka loogada ay iska leedahay haddii ay loogada xogaa yar ka fogtaana iska soo dhaweyso meelahan oo kale keen dabcan marka qaar waxa la sameeyaa in color loo sameeyo kanoo kale halkaan oo kale ayaa la geyn koow markuu yahay mid kale ayaa la sameyn doonaa kan lamid ama kaas la koobiyeen kadib waxa la sameeynaa kan ayaa dooranaysaa airdrop ayaad soo qaadaysaa waxaad ku sameynaysaa midabka buluuga ah kana waa guduud kana waa buluug wax walba oo sameeyo labadan kale rama ka dhex baxaayo marka intaasna inaad fahamtay iyadana sidaas oo kale ayaad u sameyn karaysaa aan ku laabto marka meeshaydii meeshan waxa ku jira dabcan ellipse tool aan moodo in lagu dalooliyay asagana waa soo qaadan doonaa halkan ayaan right click leeyahay ellipse tool ayaan soo qaadan kadibna markii aan halkaan oo kale ama meelahaas oo kale ayaan ku fidinaysaa marka u horeysa halkaas ka marka kugu soo baxo waa okay soo qaad meelahaas oo kale gee sababtoo waxaad u baahan tahay halkaan kadib marka sidaan kale kugu dooran yahay dhinacaan soo fiiri halkaas waxaad dooranaysaa marka ay ku qoran tahay horizontal align center kadib wuxuu ku aadi doonaa centerka ama dhexda ayuu isku aadin doonaa kadibna wax weeyaan isku select garee labadooda pathfinderkii ayaad dooranaysaa waxaad ku dhufanaysaa window halkaan waxa kugu qoran pathfinder midka labaad ee wax lagu dalooliyo ee main frontiga ayaad kala ku siinaysaa waka qaabkaas iyo isku dalooliyay si ay u jeedo marka tani waa dabcan waxaad ka diyaarinaysaa meeshii ID card-ka laga dhex bixin lahaa wax la mid ah iyadana sidaas ayaad u sameynaysaa marka tan aad iska xiro asagana pathfinder halkaas ayuu yeelan doonaa hadii aad ka weydo halkaas ka soo bixi hadii aad weydana waxaad sameynaysaa window ka dhex raadi waxaan u gudbaynaa marka halkaan qaybtan ku xigta oo inaan halkaan sameyno meesha si ay u jeedo wax weyn ma aha waxa weeyaan waa midkaan lagu magacaabo rounded rectangle weeyaan asagana waad soo qaadayaa halkaas oo kale ayaan ku fidin intaas kale markii aan geeyo colorkiisa sida u jeedo airdrop ayaan soo qaadan kadibna halkaan ayaa click ku siin doonaa colorka si uu isku bedeli doonaa waan dooran kadibna waxaan ku sameynayaa marka align inaan ku sameeyo si dhexda isku aadiyo meesha marka kulay wax kale oo sida u weyn halkaan igama muuqdan hadda waxa ka muuqda sida u jeedo sawirkan iyo qaabka stroke loo dhexgeliyay asagana waxaan ku sameynaa casharkii hore ayaan ku baranay waa isla intii casharkeen ka horeeyay ayaan ku baranay balna isku dayba inaad sameyn karayso qaabka meesha waxa inoo qoran marka magac asagana ma casharkii hore ayaan ku qoran labadii cashar midka ka horeeyay halkan waxa ku qoran title-ka mar walbana title-ka waa la yareeyaa oo wax sida weyn magac wax weynaado title-kuna ha yaraado kullina waxaad ka dhigaysaa centerka ayaad ku aadinaysaa kan dooro markii aad tusaale magac oo kala doorato halkaas waxaad ku dhufanaysaa horizontal align center ayaad ku dhufanaysaa dhexda ayuu isku aadin doonaa meesha marka iyo kan waa isla mid sida u jeedo meesha waxa ku qoran wax weeyaan round rectangle iyo kan waa isla mid labadoodaba waa isla mid meeshan farcad oo caadi ah ku qoran meeshan sida u jeedo marka waxa ku qoran sida u jeedo qoraalada caadiga ah marka intaan hal mar ayaan wada koobiyeen si dabcan qaabkaas oo kale igu soo baxo markii aan sida u doorto kulli waxaan ku sameeynaa waxa leeyahay control z control f oo hal mar ay koobi noqon doonaan kadibna waan wada qaadan meeshan ayaan wada dhiganaya wax oo dhan si ay u jeedaan xogaa wadii ay yaraadaan shiftiga ayaad la qabanaysaa si ay wax oo dhan hal mar isku weynaadaan kadib intaas ka markaan geeyo waxa leeyahay control minus ayaan leeyahay kadib markuu sidaas kale ii noqdo kulli aan doorto isagoo dhan gadaal ama meelahaas kale aan geeyo okay markii aan doorto waxaan ku sameyn doonaa oo qaabkan oo kale kulli igu dooran yihiin meesha ayaan ku dhufanaa ay ku qoran tahay horizontal align center kadibna dhexda ayuu isku aadin doonaa wax oo dhan intaas markii aan sameeyo meeshan hoose waxa ka muuqda dabcan waa qoraalku midkan ayuu la mid yahay haddii aad doonto caadi ayaad u qoranaysaa waxaad soo qaadanaysaa textiga halkaas oo kale dhigo qaabkaas ugu qoro meeshan hoose dabcan waxa ku jira sida u jeedo qaybtan ayaa ku jirta labadan qaybood oo labada color ah marka waxaan sameynaynaa ayada ayaan hadda sameynaynaa waxaan leeyahay control plus ayaan leeyahay waa soo dhaweysan intoo kale markaan keeno halkaan ayaan right click leeyahay rectangle-ka caadiga ayaan qaadan halkaas oo kale ayaan muuska geenayaa kadibna waka halkaas ayaan ku ekaysiin intaas markuu ila ekaado waa okay soo jeedo hadda waa hal colorkiisa waxaan leeyahay okay halka color iska ahaw marka ayaan ku laaban doonaa rectangle halkaan ayaa calaamadaas ayaan halkaan ku soo jiidi doonaa si u jeedo calaamada marka sida ugu soo jeedo waxaan sameynayaa si u jeedo calaamadani waxay dhexda ma taalo marka ii dooran tahay meeshaas fiiri halkaas ayaa horizontal align ku dhufanaysaa dhexda marka isku aadiso okay ayada dabcan waxaan sameynayaa colorka inaan ka bedelo airdrop ayaan soo qaadan kadibna guduudka ayaan dooran kadibna sidaa markuu yahay labadoodaba select garee waxaad tagaysaa pathfinderka ayaad ku laabanaysaa halkaan isagana waxaad ku sameynaysaa main front qaabkaas ay u kala go'ay sida u jeedo oo intii dhex ayuu kala go'ay kadibna waad dooranaysaa right click waxaad ka dhigaysaa marka ungroup ka dhig
ama adigoo aan group ka dhigin midkaan dooro oo dabcan wixii group ku dhex jira inuu dabcan kalarada ka bedeli karo waxaad dooranaysaa group selection kan ayaad click ku siinaysaa markii aad click ku siiso airdrop ka qaado kadibna click ku sii qaabkaas ayuu u noqday sida ujeeda laba kalar laakiin waa isku hal shape markaan qaado labadooda hal shape oo laba kalar kala leh qaabkaas ay u sameynaysaa control z ay raahdo booskiisa aan ku celiyo aan ku laabto marka meesheeda hadeer sida ujeeda kana waan sameeyay meeshaana qoraalkan iyo waxaas ayaa ka qarsoon meeshaana dabcan waa sameynaa iyagana halkaana wax weeyaan waa intaan oo kale laakiin waxa ku hormari doonaa marka loogadan qaabkan u kala jaray iyo asna ku hormari doonaa kan hawshii sidaas ayay iga dhamaatay dabcan waxyaabaha kale aad fahmi weydii soo weydii inta kalena sida ujeedo qoraalka caadiga farta waa inaad cadaan ka dhigto markii halkan la joogo kadibna waa inta ay u gudbi doona asagana halkaan oo kale aan imaado meeshaan markaan imaado control minus aan iraahdo oo iska fogeeyo kadibna space aan qabto gacanta markii ii soo baxay sidaas kale aan iraahdo meesha rectangle-ka ayaan iman doonaa geeskaas markii aan tago halkaas kale aan geeyo okay meesha markii aan keeno rectangle-kan sida ujeedo waa guduud mar raba marka midabkiisa waxa leeyahay none sidoo kale halkaan waa furi doonaa stroke ayaan u sameyn doonaa waxa leeyahay stroke dabcan madow haska ahaado laakiin number 1 kiisa iska joogo sidaas markay tahay loogadii meeshaan ay ii taala waa koobiyeen waxa leeyahay control c control f oo meeshiis ayaan ku dhex furay halkaan ayaan keensado laba loog ayaa meesha ii taal waxaan ku sameeyay waan dooranay right click ayaan leeyahay kadib waxa leeyahay an group sidoo kale halkaan magacaas mar rabo asagana waan iska reebaya waxaan soo qaadan doonaa marka labadan looga bas ayaan soo qaadan labada xaraf ah kadibna waxaan ku sameeynaa shiftiga ayaan la qaban halkaas kale ayaan u jiidayaa intaas markii aan sameeyo kadibna aan labadoodii aan doorto halkaas oo kale aan keeno meeshaas kale markii aan keeno sida ujeedo sidaas kale ay yihiin xogaa wali hadaa kor aan u sii qaado halkaas kale aan geeyo marka bal aan meesheeda ku laabto loogada madaxa malaha sida ujeedo waa qaybtan iyo qaybta waa ii saxan yihiin sida ujeedo marka labadoodaba kulli isku dooro markaad select gareyso rectangle-ka marka hore aan soo qaaday stroke-giisii ayaa wuxuu ku aadi doonaa loogada madaxeedaas intaas ayuu ku aadi doonaa kadib markuu sidaas yahay waxaad dooranaysaa marka waxa weeyaan shape builder ayaad dooranaysaa alt ayaad qabanaysaa kadibna sida ayaad ugu jiidaysaa meeshaan dhan kadibna waa qaabkaas ayuu u jartay intaan marka markuu soo haro kadib waxaad isku sameynaysaa opacity ayaad hoos u dhigaysaa kadib opacity waxaad ka dhigaysaa ilaa waxa weeyaan 20 iyo wax kale xogaa ka soo yaray xataa 10 iyo 7 kale ka dhigo waa okay 17 marka ka dhigata qaabkaas kale ayuu noqon doonaa wax badan markii aad rabto inaad qoraal qorto inta badan wuu nuucsan doonaa adigu waxaad ku sameynaysaa marka inaad dabcan iska xirto asagoo dhan select garee markii aad select gareyso waxaad taabanaysaa marka control iyo 2 ayaad isla taabanaysaa kadibna log ayaa ku xirmi doona asagoo dhan ma arkaysid rectangle-ka marka aan soo qaadnay ama waa iska deleedi kartaa ama waxaad u bedelaysaa sidoo kale guides ayaad u bedelaysaa asagoo dhan right click dhe kadibna waxaad ka dhigaysaa marka meeshaas aad u jeedo guides ayaad ka dhigaysaa asagii ma lumaayo laakiin wax weeyaan qaabkaas kale ayaa soo baxay kadibna dooro iska delete garee ama sidiisa u daa waxun adigu ku sameey insha Allah inta markii aan sameeyay marka bal aan u soo laabto qaybtii xigtay meeshaan waa qoraal si u jeedo qoraalkan waad sameyn karaysaa 10 dhan waa ku soo qaadanay halkan waa loogadii meeshaan ayaan marka isku dayeynaa inaan sameeyno qaybahan kan waa midka la mid meeshaan waa kan ayuu la mid yahay oo midka caadiga rounded meeshaan waa qoraal caadi ah farto cadaan tahay kuwana waa typicon 3 xabba ah oo isla socda hal mar markii aad qorayso kaliya waan tijaabin doonaa iyadana sidoo kale waan qorayaa meeshaan ayaan u baahanahay kii hore inaan hormariyo waxaan ku laaban doonaa halkan ayaan tagaya waxaan soo qaadan doonaa midkan waan soo jiidayaa halkaan oo kale aan keeno si u jeeda qaabkan uu yahay shiftiga qabo iska yaree asagoo dhan meelahaas kala gee intaas ka markii aad keento waa okay waxaad ku sameynaysaa marka rounded rectangle ayaa dooranaysaa halkaas kala gee qaabkaas kala samee midabkiisa u jeedo stroke waxaad ka dhiganaysaa guduud ah ama stroke dabcan color kala ayaad ka dhiganaysaa midabkiisana kulay cabirkiisana badi ilaa 2 3 meelahaas kala waa okay intaas markii aad ka dhigato kadibna siki oo dhinacan u siki halkaas ka markaad geeso kulli isku dooro kadibna waxaad ka dhigaysaa align-ka ayaad ka dhigaysaa dhexda waa okay inta markii aan sameeyo waxa ii dhiman oo kale dabcan waxaan qaybahan yarka ayaan ku dari doonaa kadibna bas 10keena halkaas ku eegyahay marka halkaan markii aan imaado wax weeyaan type-ka ayaan soo qaadan type tool halkaan ayaan iman doonaa dabcan haddii uu ka fog yahana dhib ma leh halkaan oo kale imow control plus dhe soo dhaweyso waxa aad sameynayso halkaan waxaad ka dhigaysaa marka bedel typicon dooro ama halkaa ku qor typicon regular halkaa ku qor ama dooro kadib markuu sidaan ku yahay waxaad taabanaysaa Facebook oo F ah Instagram oo wax weey xarafka ugu horeeya
iyo Instagram iyo midka kale wuxuu ahaa Twitter sidaan u maleynayo oo T ayaad dooranaysaa inta markuu yahay kadib T isla taabo saddexda marka wada doorato kalarkoodu waa gaduud sida u jeedo kadib marka sidaan u highlight gareeyo halkaan oo kale gaduud waa igu jira airdrop-ka soo qaadana shape-kii ii diyaarsanaana waan ku dhufan karaa marka hadda cabirkooda aad uu gaaban yahay shape-na waan u bedeli karaa waa la mid halkaas kale aan u weyneeyo waka qaabkaas ayaan u sameynaysaa ayagana halkaan oo kale hoostooda dhig meesha marka ad iyo waxa ka dhiman iyo qaybihii kale ayagana insha Allah ku darso oo qaabkaas kale u samee waka marka cashirkeeni halkaas ku yahay meeshan qoraal caadi ay number ayaa noo yaal marka ID card-kii concept-ka guud hadii aan isla fiirino ID card-ka qaybtiisa hore waxa lagu qoraa markaas waxa lagu dhijiyaa sawirka sidoo kale qofka magaciisa iyo wax weeyaan shaqadiisa halkaan kale waxa la dhigaa ID card numberkiisa halkaan waxa lagu qoraa marka xilliga uu soo baxay ID card-ku iyo xilliga uu dhacayo waxyaabahan kale waa iska naashnash inta marka marnaba lagama tago waana qasab in lagu qoro wax weeyaan marka qaar waxa laga tagaa xilligu soo baxay kaliya waxa la qoraa xilligu dhacay ayaa la qoraa waana jaamacadaha qaar iyo iskuulada qaar waa isticmaalaan marka halkaan ay ku qoran tahay identity card waxaad ku qoraysaa marka student card hadii aad arday u sameynayso student card ku qoro meesha marka creative designer ay ku qoran tahay waxaad ka dhiganaysaa marka shaqadu qofka qabto duu finance uu qaabilsan yahay haduu wax weeyaan waxaas un baad ku qoraysaa insha Allah marka halkaan mar walba waxa lagu qoraa marka Soomaali xataa lagu qoraa badana waxaad ka dhigaysaa dabcan ID card-kan hadii aad aragto asagoo meel ku lumay fadlan la soo xiriir xuquuqda ID card-kan waxa iska leh shirkadda Blay ama meel Blay fadlan hadii aad aragto waxyaabahaas kale ayaa lagu qoraa oo qofka laga codsanayo hadii uu helo halkaan waxa lagu qoraa marka xogta faahfaahsan ee shirkadda halkaan shakhsiga ayaa iska leh halkaan waxa iska leh marka shirkadii iyo iska leh numberradeeda iyo wax weeyaan kan marka kulay marban cashir ka sameyn doonaan qaabka loo sameeyo sababta wax weeyaan xogta ayaa lagu shubaa kadibna wuxuu bedelayaa by wax weeyaan wuxuu bedelayaa SQ scan code ay u bedeli doonaan marka kadib marka scan ka la saaro qofkan sawirkiisa iyo xogtiisa dhan ayaa soo baxaya hadii uu ID card-ku fake yaana ma bala arkay haduu ID card-ku sax yaana kale marka xogtu shirkadda ay u gaartaa laakiin anagu qaabka loo sameeyo ayaan baran doonaa insha Allah marka uu noo dhamaado software-ku ayaan dhigan doonaa marka meelahan oo kale damcan waxyaabo sida ugu muhiimsan kuma jiraan wixii dhamaa aan baranay waad sameeysan kartaa saddexda 10 daawo ID card-ka cabirkan ayaa loo wada batay hadii aad doonayso ID card-kii jiif oo business card-kii kala cabir ka qaado kadibna sawirka toosi oo qaabkii hore samee marka bal saddexda 10 hadii aad daawato wax badan ayaad u baahan tahay inaad ka fikirto oo aad sameyso marka kulay muuqaalkeena halkaas ku yahay waxaan kaga tagayaa qeyr badan inaad wax badan tijaabin doontaan insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh